السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبada waa salaamantiin malkastoo dunida daafeeda ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena maxaa cusub fankiindi inta badan barnaamijkan qodobada update-ka ugu baahantiin dhankaasi Bollywood-ka koonfur haday noqoto ayaan kusoo qaadanaa intaan gudagelin barnaamijka hadda channel-ka cusub tahay subscribe noo saar sidoo kale ilowin inaan muuqaalka laga noo saarto aan ku bilaabno qodobkeena kuwa saaxiibada sidaan ka warqabno ninka lagu magac Puneet Rajkumar ninkan saaxiibada wuxuu geeriyay sanadkii hore bishii October sidoo kale filimkiisa ugu dambeeyay tiyaatar loo saaro wuxuu ahaa James sida daraaddeed ninkan wuxuu qabiyay kaga tagay saaxiibada filimka lagu magacaabo Ganda Goody sida daraaddeed filimka qabiyay kaga tagay waa la dhameystir haddana filimkana waxaa si official loogu dhawaaqay in la daawan doono 20 October ee sanadkan ku jir 2022 ayaa la daawan doona sida hadda shaac laga qaaday Puneet Rajkumar saaxiibada wuxuu kamid ah superstarada ugu awoodda badnaa fanka loo yaqaan Canada sida daraaddeed ninkan wadna xanuun ayuu u geeriyay sanadkii hore haddana filimka qabiyay kaga tagay waa la dhameystir saaxiibada qiimaha badan hadda waa official filimkan lagu magacaabo Ganda Goody waxaa la daawan doona 20 October ee sanadkan ku jir 2022 ayaa la daawan doona filimkana waxaa ka dhintay ninka lagu magacaabo Puneet Rajkumar taasoo ka dhigay filimkan wuxuu noqon doonaa filimkiisa ugu dambeeyay oo tiyaatar loo saaro ciwaanada kale aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah ninka lagu magac Vijay Sethupathi ninkan saaxiibada waa nin shaqo hadda waxa u diyaarsan filim lagu magacaabo 191 ee sida daraaddeed hadda waxa si official loogu dhawaaqay filimkan in laga daawan doono barta loo yaqaan Disney Plus hoosta sidoo kale shirkadan ayaa gacanta ku dhigtay sidoo kale maalmaha soo socda waxa si official loogu dhawaaqi doonaa maalinta la daawan doono ama taariikhda la daawan doono ayaa shaac laga qaadi doona laakiin hadda Disney Plus hoosta ay filimkan gacanta ku dhigtay sidaan ka warqabno ninka lagu magac Vijay Sethupathi filimkiisa ugu dambeeyay la daawado waa filimka lagu magacaabo Vikram kaasoo noqdo all time blockbuster sidoo kale wuxuu ka qaatay kaalin muuqda ay ka qaatay haddana filimkan ayaa la imaad OTT ayaa laga daawan doonaa ciwaanada kale maanta soo qaadan karno waxaa ka mid ah walle wiilka lagu magac kartay Aryan ninkan waa horumar ama waa talaabsan sidaan ka warqabna ninkan saaxiibada filimkiisa ugu dambeeyay u guuleysto filimka lagu magac Bolboleyato kaasoo u noqday super blockbuster sida daraaddeed haddana wuxuu dhil la gaaray shirkadda ninka lagu magac Sajid Nawal inta badan film qarash garay sidoo kale director lagu magacaabo Kabir Khan saddexdan shakhsi awoodda badan saaxiibada waxay sameyn doonaan film action ay sameyn doonaan ay ku midoobi doonaan sida daraaddeed karta Aryan markaan film sameeyaasha sidoo kale film qarash garayaasha ay inta badan ku soo xumay haddana waa official ninkii ahaa Sajid Nawal Kabir Khan iyo sidoo kale kartay Aryan way isku imaadeen sidoo kale film action ay ku midoobeen ciwaanada kale aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah maalmihii ama saacadihii ugu dambeeyay saaxiibada waxaa baraha bulshada haystay ninka lagu magacaabo Jaranjeefi sidaan ka warqabno Amir Khan dhankaas ee Hyderabad week ugu dambeeyay ay ku sugnaa sidoo kale filimkiisa Laal Sinjada wuxuu u daar shakhsiyaadka ugu awoodda badan fanka loo yaqaan Telugu haday noqoto Jaranjeefi sidoo kale SS Rajamouli xitaa waxaa jooga ninka lagu magacaabo Nagarjuna sidoo kale director Sukumarna wuu jooga sida daraaddeed filimkaas halkaas ay lagu daawaday waxa shaac laga qaaday Jaranjeefi saaxiibada markuu filimka daawaday inuu aad u qiiro sidoo oo kale u ooyay sida daraaddeed saaxiibada fiidiyaasha inta badan baraha bulshada hadda la wareejinaa wax kale ma ahan Amir Khan saaxiibada qiimaha badan asigoo qiiraysan sidoo kale ilmeynay inta badan baraha bulshada haday noqoto dhankaas Twitter-kana la wareejinaa sidoo kale Amir Khan saaxiibada qiimaha badan waxa habsi ninka lagu magacaabo Jaranjeefi maadaama filimka Laal Sinjada uu aad ugu ammaan ninka lagu magacaabo Jaranjeefi bandhiga Amir Khan uu ka sameeyay oo la cajabay sidoo kalena oo la ilmeeyay hadda sheekada jirto waxay tahay saaxiibada qiimaha badan Jaranjeefi mas'uuliyadda jalad qaybinta dhankaas Telugu marka la joogo asaga qaatay taasoo ka dhin saaxiibada filimka Laal Sinjada dhankaas Telugu marka laga daawanayo cajaladiisa waxa qaybin doona ninka lagu magacaabo Jaranjeefi ogaada filimkan saaxiibada Laal Sinjada waa filim weyn sidoo kale Amir Khan uu rajayn doono inuu ku qabsado gudaha dalka Hindiya daafaha caalamka waxaana atirisho ku adkaa filimkan atirishada lagu magacaabo Kareena Kapoor Khan sidoo kale filimkan waxa door ku leh ninka lagu magacaabo Nagarjuna oo markii ugu horeysay jalaagan sameynay film dhankaas iyo Bollywood kala sidoo kale ogaada filimkan saaxiibada waxaa laga soo min guuray filimka lagu magacaabo Forrest Gump oo laga lahaa dhankaas Hollywoodka sidoo kale ogaada filimkan waxaa director ka ninkii sameeyay filimkii weyn lagu magacaabo Secret Superstar kaasoo saaxiibada inta badan Amir Khan bandhiga ka sameeyay aad looga ammaan ninka lagu magacaabo Advat nin lagu magacaabo filimkana agaasimay sida daraaddeed Amir Khan amaan kale uma dhinna maadaama Jaranjeefi markuu filimkan daawado oo la qiirooday bal markaan waxaan soo qaadan doonaa arrimaha ganacsi aflaam tiyaatar saaran ganacsiga halka ay maraan waxaan ka bilaabi doonaa filimka weyn Dawaar saaxiibada filimkan weli wuxuu sameeyay hoos u dhac sidoo kale ganacsi iska dhexdhexaad oo sameeyay waxa isla fiirin doona filimkan wuxuu dhameeyay wax loo yaqaan week indi ayuu dhameeyay week indigiisa kuwaad ganacsiga guud uu sameeyay isla fiirin doona markaan fiirno filimkan shaleeto oo saaxiibada maalintii safarad oo dhankaas Telugu markaan fiirino wuxuu soo xaray canshuurta kor lacag gaaris 4.65 karoon ayuu soo xaray qolay jirdaha qeybay ka heleen saamin gaaray 2.86 karoon ay keeneen sidoo kale Telugu marka la joogo saaxiibada 4 maalmood wuxuu ka soo xaray canshuurta kor lacag gaaris 22 karoon bar ayuu soo xaray qolay jirdaha qeybay ka heleen saamin gaaray 14 karoon bar
ayay ka helay hindi inteeda kale wuxuu ka keenay lacag gaaraysa 80 lag overseas-ka suuqyada caalamkana wuxuu ka keenay lacag gaaraysa 55 lag dhankaasi Tamilk markaan fiirino wuxuu ka keenay lacag gaaraysa 82 lag filimkan ganacsigiisa wax loo yaqaan dibadda markaan isku darno wuxuu soo xareeyay lacag gaaraysa 28 karoon ayuu soo xareeyay qolyaha cajaladaha qaybna waxay ka heleen saami gaaray 17 karoon still saaxiibada filimkan ganacsigan kuma filna maadaama miisaanad gaarayso 30 iyo wuxuu xambaaraysan 39 karoon soo dhameystir u noqday saaxiibada qiimaha badan waxay kaga dhimantaa lacag gaaraysa 22 karoon ku dib u soo celiyay filimkan green hid noqon doona iska daa in hid noqday saaxiibada hadda waxa leeyahay filimkan la fahmo badin doona sidoo kale noqon doona filim kaliya guuleystay hadda inta badan saaxiibada rajal la qaba ay tahay bal markaan saaxiibada waxaan soo qaadan doona filimkii weena joog wuxuu dhameystay filimkan wax loo yaqaan weeg indhigiisa afraad u dhameystay sidoo kale ganacsigiisa gudaha ku maray asla fiirin doona filimkan saaxiibada qiimaha badan wali uu iska xariiftama sidoo kale gudaha dalka hindi marka la joogana wali wuxuu u dagaaltama sidoo darajada 100 karoon oo ku gaar la sidoo kale filimkan weeg indhigiisa afraad saaxiibada soo xaray lacag gaarayso 2.5 karoon soo xaray filimka marka ganacsigiisa isku darna wuxuu maray saaxiibada lacag gaaraysa 78 karoon ayuu maraa waa lacagta gudaha dalka Hindiya markii suuqyada caalamka loogu darno saaxiibada already ganacsigiisa wuxuu ka talaa 105 karoon ayuu ku dhawayaa sida daraaddeed stillna filimkan asna waxay u badan tahay inuu noqon doono filim saaxiibada qiimaha badan guuleyso maadaama weegan lagu soo foodla filimkan OTT-ga lagu soo fasixi doono bal markaan waxaan soo qaadan doonaa saaxiibada Tolkien history maanta oo kale aflaamta aan kala daawadan maanta oo kale xalada filimka aad kala jeclay sidoo kale SRK bandhig oo ka sameeyay aad kala uga amaano filimka lagu magacaabo Yes Boss filimkan waxa la daawaday 18 July 1990 dabadii hogaamiyaha filimkan oo ninka lagu magacaabo Shahrukh Khan sidoo kale waxa kula jiray Juhi Joel Atrish ku adkayd sidoo kale filimkan waxa bandhig ka sameeyay ninka lagu magacaabo Diya Banjoli xitaa Gulshan Garofna filimkan uu ku jiro waxa director-ka filimkan ninka lagu magacaabo Aziz Mirza filimkan saaxiibada waxa la saartay teatar gaaray 180 shilin ayaa laga daado xaluu qarash garay filimka miisaanad gaarayso 5 karoor cumraantiisana wuxuu soo xaray lacag gaarayso 12 karoor bar ay soo xaray taasoo ka dhigin filimkan Yes Boss natiijo inuu noqday hidda meesran ayuu noqday markaan fiirna filimkan lacagta soo gaarayso 12 karoor bar hadii sicirka maanta lagu jaangooyina saaxiibada waxay u dhigantaa adduun lacageed gaarayso 96 karoor u dhigantaa sidoo kale filimkan Yes Boss waxa tikid u goosto shaleemada ka daaw sida diiwaan gashan dad gaaray 9,971 qof ayaa tikid u goosto shaleemada ka daawatay sida daraaddeed filimkan Yes Boss SRK uu ku xarkeen natiijaan saaxiibada wuxuu noqday film hit ayuu noqday oo guuleysto oo macaash laga helay ayuu noqday dhinaca kale saaxiibada aan fiirina maanta oo kale aflaamta caan kala daawo saaxiibada qiimaha badan maanta oo kale waxa la daawaday film lagu magacaabo Kismet Connection filimkan waxa la daawaday 18 July 2008 ayaa la daawaday hogaamiyaha filimkan waa Shahid Kapoor Fidya Balan Juhi Joel sidoo kalena on boorihi giro ee door kula isla director xakaa ninka lagu magacaabo Aziz Mirza saaxiibada filimkan waxa la saaray sanad tiyaatar gaaris 850 shilin ayaa laga daawaday xaluu qarash garay filimka miisaanad gaarayso 22 karoor cumraantiisana wuxuu soo xaray lacag gaarayso 22 karoor bar taasoo ka dhigan filimkan natiijo inuu noqday flop ayuu noqday film gool dareysa ayuu noqday markaan fiin lacagta gaaris 22 karoor de sicirka maanta lagu jaangooyina almost saaxiibada waxa dhiganta lacag gaaris 42 karoor ay u dhigantaa sidoo kale filimkan waxa tigid goos shaleeman ka daa sida diiwaan gashan dad gaaray 4,392 qof ayaa tigid goos shaleeman ka daawatay sida daraaddeed natiijada filimkan Kismet wuxuu noqday flop ayuu noqday وتكون سنتين صاحب الداش أضاعتنا مقالك على كسرنا برنامج كنا محا عصب فنكين دي دايتا مركي كوري صوب بقنا جنال كنا سبسكرايب نوصار صدو كلا لوينا مقالك لكن وصارت أركتها كومنت نغرب حتى كمنتا صاحب دورنا الجوج مقالك شارس صاحب وناكسن هذا كلا جنال كوغو صوب برا انتا برنامج كان برنامج كل منه أما على السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته